بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا البانada sharafta leh waad salaamantiin. Gudoomiyaha waa mahadsan yahay gudoomiyaheenii hore ee baarlamaanka tobanaad xilkiisa sharaf badan loogu wareejiyay xafiisyada iyo kullin waa booqan doonaa haddii alle idmo maanta ajendaheena wuxuu ku koobnaa xil wareejintaas kaliya waxaan ku darsanaynaa hoogo yar dirdaar ah yaan ku darsan doonaa insha Allah. waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh horta marka koowaad mar labaad mar saddexaad inaan idin mahadcelino anigoo magaca gudoonka ku hadlaayo bartakoolka waxaan noo xil saaran noo wada xogayahan guud marka sidoo uu tilmaamay baan ku wadi doonaa gudoomiye ku-xigeenada biyaajida aan soo fadhiisanay inta soo fadhiisan doonaan sidoo sheegay hadda macnaha dirdaar iyo kaliya aniga dhameystiri doonaa. waxaan rabaa marka koowaad inaan idin mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka 12aad sida sharafta leh aad noo soo doorateen oo maanta ilaahayna waafajiyay aniga oo nabad qamnaa inaan isku nimaadno golaheena ilaahayna gaarsi alxamdulillah mahad dhamaanteed ilaah bay u sugnaatay. dhinaca kale waxaan rabaa inaan idin cadeyno haddii ilaahay yiraahdo maanta wixii ka horeeyay anagu wixii la soo maray oo maamulka afaariis ah waxa soo waday guddiinka kumeel gaarka ahaa anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga xildhibaanadeena golaha shacbiga ayaan ugu xisaabtami doonaa in anagu hawsha bilaabayna saas koo mabda'iyaan inaad ogaatiin. mid kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale bari inuu gaaro laga yaabo waa gebagebo soonkii maaragtay waqtigiisa yaa dhamaanaya ciida fooda nagu soo haysaa. marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa ciidda kadib iyo isku soo noqoshada noqon doonta wax kasto arrin oo u baahan inaan saxno markaan isku soo noqono ayay ka bilaaban doontaa. anagu hadduu ilaahay yiraahdo waxyaalo yaryar inay jiraan waa lanoo sheegay arrimaha sideedii anagu haddaan nahay guddoonka golaha shacbiga manihin dad tiim gaar ah oo calaama saaran baarlamaanka golaha shacbiga yaan maaragtay anagu mas-uul u nahay horeyn waa u ballan qaadnay waa waajibaadka dastuuriga aan saaran si kalsooni leh daacadnimo ah ilaahay dartiisa baan wada shaqeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo wax kasto waajibaadkeena dastuuriga aan hadduu ilaahay yiraahdo si dastuurka shuruucda dalka waafaqsan ma u gudan doonaa si madax bannaan ah horeyn markii maaragtay khudbooyinka ku jireen waa sheegnay haddana insha Allah dad isbedelayo ama koox gaar ah la safan doono ma noqonayno. waxaan kale rabaa inaan idin sheego idinkoo raali ah maanta warkii idinku fogeynaayo maadaama hataa gudoomiye ku-xigeenadayna hataa soo fadhiisin oo bartakoolkaas yar aan ku dhex jirno ajendahan uu ku kooban yahay keliya xil wareejinta waxaan isku soo noqon doonaa haddii alle idno bisha 4teeda ciidda kadib. ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo bax waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiyaa annaga shacbiga Soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo la naga sugahayo doorasho xur iyo xalaal inaan dalku u qabanno taas ummadda Soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeena koowaad kaas waay. marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyadda 2022 lama soo qaadin hoogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray waqti yar oo fatir iska ah. marka miisaaniyaddaas oo noo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa. labadaas qodob aan noogu muhiimsan waana bisha 4teeda isku soo noqonaynaa maanta shirkeen saasa noogu yeeran yahay. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.